horta sheekh Shantaayo khayr Allah ku siiyo sheekh Soomaaliyeed tahay nin diin la tahay diintuna waxay u baahan tahay baraha bulshadaba sheekhay u baahan tahay suuqyadana sheekhay u baahan tahay culimada meel warbana saacad walba la joogna diintii looga hadlo waa sheekh Shantaay garabkaagan taaganay anoo suldaanka Soomaaliyeed dhaqanka Soomaaliyeed afkooda ku hadlayo anuu nin islaam ah oo diin leh dadka aan suldaanka oo Soomaaliyeed waa dad islaam ah diinta islaamkana in looga dhaqmaan raba baraha bulshada gabdhuhu anshaxooda inay ilaaliyaan wiilasha inay ilaaliyaan ciddi ilaali waysan waa la soo qabanaya madaxweynaha ninka isku magacaabay baraha bulshada bulshaawi aabaa leeda aabiisay maqlo hadduu dhinto adeerkiisay maqlo abtigiisay maqlo suldaankiisa nabadonkiisay maqlo hala qabto wiilkaas dhaqan xumada ku wada gabdhaha iyo dumarka iyo waxa soo dhaxgelinay wallaahi oo billaahi oo tallaahi anaga dad muslimiin kitaabka ilaahay xuduudiisa laga gudaa qofka lambar 4 uga gudayna sheekhiya jooga qabanay 80 jadalkiile kii dhagax lagu ridminayo kii la xiraa diinta islaamka lagu dhaqayo wadanka sheekh Shantaayna waa ku mahadsan yahay mal hore waxa tiri cid aniga garab taagan male waa lagu garab taagay waana lagu dhageystay Soomaaliya oo dhan muslim waa la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah inta tira ku garab taag cidi ku xad gudubta diinta islaamka waa la qabanaya ilaahayna uu qabanaya anagana waa qabanaya bilisaani ma biyadi gacanta lagu diraya wali nimanka tima jarayaasha waxa uu falaya dadka jaagada u jirayaan ha ka ilaaliya waa lagu xisaabtamaya nimanka tin harqaanada tolana dadka dharka ay ku dajiyaan ha la iska ilaaliyo nin walba gabadha aad dhashay iyo wiilka aad dhashay barito waa lagu weydiinaya ama abti uu haw ama adeer uu haw ama dhal ama daris la haw ama ha ku shaqeeyo ittaqula ilaaha laga baqo anagu dad muslim baan nahay waa ina diinteena ku dhaganaana in maskaxdeena lagu xado dimuqraadiyad diinta islaamka kala sareen male cadaalad waaye nin ka sharaf badan male ninkii ilaahay xaqiisa cibaadada ilaahay u badan u sharaf badan halka wadada lagu socdo nin walba maanta wax taagta adduunyo waxa u socotaana akhirawa marka sheekh Shantaayo shaqadaada qabso dadka wacyi gali gabadha sheekh Shantaayo nin sheekha lama loo gafi karo nin suldaana loo ma gafi karo warka runtiisa la rabaa sharciga lagu soo ogeeyaa hadduu suldaanka dambi yeeshana waa lagu qaadaya haddii cidda wax yeeshay ee aflagaadeysana ninka suldaanka ama sheekhna waa la qabanaya nin sheekha caalima qaala Allah qaala rasuulullah gabadha u gaftay reerkeedan ka rabnaa inay noo keento noo maxkamadayso oo maxkamad islaami la saaro maxkamadda islaamiga meel walba oo muslim joogay joogta meesha looga dhaqmayana la geynaa wali cid aan loo yeeri karin haday sameey waayaan bartay joogta laga soo qabanaa maxkamad islaamiga la saaraa sharciga islaamka lagu qaada sheekhana waxa la rabaa asagana inuu san xanaaqid diinta islaamka uu fuliyo awooda waxa u yeelay sheekh Shantaay diinta islaamka u yeelay qaala Allah ninka u dagaalamaya la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah in lagu dhaqmo anshaxeeda la ilaaliyo waxay ku farayso la fartoomo wixii ka reebayso laga joogto ninka awood badan male ilaahay baa awoodsi annagana waa garab taagana taasna Shantaayaan kale